الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. تفسيركي قرآنك ayaan ku soo jirnay. suurat الضحى ayaan noogu dambaysay. caawa in sha allahu tacaala waxaan gelaynaa suurat lleyl. suurat lleyl waxay ka mid tahay suuradaha oo makiyada ah. waa markii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo maka uu joogay oo caqiidada ayuu ka hadli jiray iyo qiyaamada. suuratan waa magaceeda suurat lleyl, makiya weeyaan, aayadaheedana 21 weeyaan. waxayna soo degtay bacda alaclaa, sabbixisma rabbiga laclaa bacdigeed ayay soo degtay sida hadda musxafkan uu noo sheegayo. bismi illaahi araxmaani araxiim. walleyli idaa yakshaa. suuraddan laba qeybood ayay ka hadlaysaa. qeybta hore ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa dhaaranaa habeenkii markuu mugdi uu noqdo, maalintiina marka oo ay iftiin naqdo ay feedanto. waxaan isku dhaaranaa ilaahay lab iyo dhedeg allaha abuuray dadka in arrimahoodii iyo acmaashooda ay kala tagsan tahay. dadkii laba qeybood weeyaan. dad oo maalkooda wax ka bixiyey ilaahayna ka baqeen, tii wanaagga badneedna rumeeyeen jannada. ilaahayna wuxuu u fududay doonaa dadkaasay tii fududeed jidkii iyo shareecadii oo u fududeysay oo lagu gaarayay jannada. qofkii oo bakhiil noqdo maalkiisa ku dhego oona ka deeqtooma ilaahay subxaanahu wa tacaalaa, oona tii wanaagga badneedna beeniya oo jannada ah, asaga waxaan u fududaynaynaa tii cusleed, jidkii cusleed yaan u fududahaynaa oo arrintaasi gaarsanaysa dhib iyo dhibaato iyo naarta. marka maalkiisii ku faani jirane waxma u anfacayo markii uu ku halaagsamo naarta. qeybtaasi hore intaasi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kaga hadlaa. qeybta dambe ilaahay wuxuu ku galadeesanaa mu'miniinta. wuxuu leeyahay wax la caddeeyo annaga ayaa iska leh, tafadulan mina, wax waajib nooga ah maa. annagana waxaan leenahay aakharo iyo adduunkaba annagaa iskale uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa. caddeynta waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo noogu abaal marinayo inaas noogu degaay naar oo hurayso, oo aanan geli doonin naartaasi ilaa midkii ayaan dar oo mooye, kaasoo xaqa beeniyey ee xaqiina ka jeedsaday. waxaana laga fogeyn doonaa midkii cabsiga niman badnaay oo ilaahay ka baqaayay oo maalkiisana uu dhiibaayay inuu isdahiriyo. waxaas uu dhiibaayne galad iyo abaal qof darteedii allagu abaal mariyo uma dhiibaayo ilaa ilaahay dartiisa mooye. ilaahayna wuxuu sii doonaa waa ka raali noqon doonaa. markaa suuradda dhan labadaas qeybood ayay u kala qeybsan tahay. qeybtii hore ayaan gelaynaa markaa. bismi illaahi araxmaani araxiim. walleyli habeenkiiyaan ku dhaaranaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaalaa. idaa yakshaa, waxyaabaha dhammaan markuu daboolo mugdigiisa oo ku daboolo. ilan habeenkii gudcur weeyaan,
habeenka ilaahay ku dhaaranaa waa markii ashyaada dhan ou daboolo mugdigiisana oo ku daboolo wannahaari maalintii ama dharaartii aan ku dhaaranaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala idaa goortii tajallaa ou muuqdo iftiinkiisii uu soo muuqdo markaa iftiinka oo maalintii uu soo muuqdo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaaranaa oonasna ou soo caddaado koonkan ilaah isagaa abuuray makhluuqaadkiisa waa ku dhaara karaa bani aadam isku dhaara karaa cir iyo dhul isku dhaara karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen iyo maalina isku dhaara karaa naftiisna waa ku dhaara karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqa dakara maada laba macnaa xagga ciraabta haddii masdariyo laga dhigo waxay noqonaysaa wamaa khalaqa dakara lab abuuritaankeedan ilaahay waa ku dhaaranaa wal unthaa iyo dhadig ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray maada marka waxay noqonaysaa masdariya dadka carabiga kasaayaan wamaa khalaqa dakara waxaan ku dhaaranaa ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala lab abuuritaankiisaan ku dhaaranaa iyo wal unthaa dhadig bani aadamiga waxay ayay ka kooban yihiin lab iyo dhadig ayay ka tarmayaan marka culummada qaarkoodii waxa ayay leeyihiin wamaa khalaqa dakara wal unthaa nabiyullaahi aadam iyo ummuna xawaa asalka taas weeyaan laakiin wixii ka soo haray ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray lab iyo dhadig sidaasay ku tarmaan nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu ka abuuray caro bilaa abin wa ummin ina allaha calaa kulli shayin qadiir ummuna xawaa waxaa laga abuuray feyrtii oo waxa weeye nabiyullaahi aadam laga abuuray calayhim asalaatu wassalaam nabiyullaahi ciise waxaa ilaahay uu ka abuuray ummun bilaa abin ilaahay agtiisa meel ay ku xiran tahay awooddiisa ma jiro waxay bani aadam ka soo haray ilaahay lab iyo dhadig ayaa macnaa uu sameeyey ilaahay haddiis rabo wuxuu samayn karay bani aadamka cirka inuu ka keeno ama dhulka uu ka keeno laakiin dadkii waa ay wareeri lahayeen laakiin nidaam almaciisha nolosha ilaahay wuxuu sameeyey lab iyo dhadig ayuu sameeyey qof markuu rabo inuu guursado oo meesha taran ay ka soo baxaan lab iyo dhadig ayuu ka kooban yahay marka ilaahay marka wuxuu ku dhaaranaa ilaahii lab iyo dhadig abuuray abuuritaanka lab iyo dhadig la abuurayaan ku dhaarana ilaahay leeyahay marka maada masdariya waay haddii maada oo masdariya aan laga dhigin waxay noqonaysaa wamaa macbuudan ku dhaaranaa khalaqa abuuray addakara lab abuuray wal unthaa dhadigna abuuray intaa markuu ku dhaartay ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabulqasamka waa kanaa marka dhaarta jawaabteedii inna sacyakum ininka camalkiina iyo shaqada aada haysiin adduunka la shataa waa kala tagsan yahay laba macnoba way ku fasiraan culummada qof walba waa camal falaa adduunkan oo macnaa adduunkan inta uu joogo ilaahayna wuxuu leeyahay shaqooyinkiina iyo camalkiina waa kala tagsan yahay nabigana waa tilmaami sala allahu calayh wasalam qof walba aroortii waa soo ka lahaa
ninna naftiisii jannada ayuu ku gadaa midna naarta ayuu ku gadaa ayuu yidhi. marka meeshaan ilaahay wuxuu leeyahay inna sacyakum idinka acmaashiina iyo shaqooyinkiina la shataa waa kala tagsan yahay fil jazaa'i abaalmarinta. ninkii wanaag sameeyo ilaahay jannadaas ku abaalmarinaa, ninkii xumaata sameeyona naarta ilaah ku abaalmarinaa. jawaabtii oo ilaahay ku dhaartay habeenkii iyo dharaartii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray. fa ama marka dadkii laba qaybood way abaalintooda waa kanaa marka. fa amaa man qofkii acطaa wax bixiyey maalkiisa bixiyey ilaahay dartii uu bixiyey, wattaqaa ilaahayna ka baqay ciqaabtiisa ilaahay ka baqay, wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagga badneed oo jannada ah. sadaqa macnihiisa waxa weeyaan waxay muujinaysaa tikraar, waa rumeeyey weliga ilaa iska dhinto wuxuu rumeeyey tii wanaagga badneed oo jannada ah. jawaabtiisii fa amaa man actaada jawaabteedii waxa weeyaan fasanuyasiruhu waxaan u fududay doonaa lilyusraa tii fudeedka badneed. meeshaan culummada qaarkoodna wasadaqa bilxusnaa waxay leeyihiin jannada waa lagu fasiraa, waxaa kaleetaa lagu fasiraa bilmillati alxusnaa wahiya alislaam, islaamnimada rumeeyey. tan wanaagga badneed waa islaamnimada weeyaan. waxaana u fududayn doonaa tii oo fudeedka nimada badneed ama tii fudeedka ahayd oo ah jidkii fudeedka ah ayaan u fududayn doonaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu leeyahay waa xaaladii oo gaarsiinaysay raaxo iyo fudeed oo ilaa jannada gaarsiinaysay. waa qofkii wax dhiiba oo ilaah naga baqo oona rumeeya islaamnimada rumeeya. qofkii oo ku xiga miya ilaah wuxuu leeyahay inna sacyakum la shataa. wa amaa man qofkii bakhiila oo haysta maalkiisa oo wax aan ka bixinin dadka masaakiinta aanan siinin, wastakhnaa deeqtooma oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka deeqtooma, ilaahay aan ka baqin oo ilaahay aanan ka cabsanin. maxaa yeele qofka maalka la siiyey badanaan waxaan soo marnay suurat aliqra, kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istakhnaa, oo wakadaba beeniya bilxusnaa tii wanaagga badneed oo laba macno ah, ama jannada beeniya ama miladii wanaagga badneed oo islaamnimada beeniya. hee jawaabteeda waagtana oo waxa weeyaa manta. fasanuyasiruhu waan u fududay doonaa, waxaan waafaji doonaa khayrka lilyusraa tii oo fudeedka ahayd, xaaladii oo gaarsinaysay fudeed iyo raaxo. maya fasanuyasiruhu waa gefi. fasanuyasiruhu waxaan u fududayn doonaa lilcusraa tii culeyska badneed oo ah oo gaarsinaysay waxa weeyaan culeys iyo shido iyo dhibaato gaarsinaysay yaan u fududayn doonaa. markaa dadka haddaad aragtid dad oo salaada dukanayaan, soonka xajka la imaanayaan, ilaahayaa u fududay arrintaasi. dadkan oo macnaa bakhiil noqno oo ilaahay dadkan macsiga ku jiraan, khamrada iyo khamaarka iyo macsiga ku jiraan, ilaahay u fududeeyey. maxaa yeelay bakhiilaas noqday, ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisana waa ka deeqtoomay. haddii markaa oo naarta la geeyo maalkiisana wax muu anfacaayo,
حقي أو ككبري أو كديقتون هذين وح منفعايو تاسع إليك جوابا وما يغني وحمك ترايو أما مك علنايو عنه حقيس ماله مال كيسي إذا تردى هدو أو شلوضو أو كو شلوضو نارتو أو كو شلوضو oo naarta oo ku dhacaya loola jeedaa shalwashada sheekayga ayaa sidaa ku fasiri jiray culimada qaarkoodna waxay ku fasiraan wamaa yughni wax kuma taraayo oo mudeeqaayo maka reebi karo canhu xaggiisa maaluhu maalkiisi oo ku macna hantidiisa adduunka oo bakhiil oo ku noqday idaa taraddaa hadduu halaagsamo wax uma taraayo maalka maal wax ma taraayo haddii ilaahay sida uu rabo aadan ku bixinin qaybta labaad waxa weeyaan ilaahay markuu kala caddeeyey acmaasheena in oo ay kala tagsan tahay dadka labada qaybood abaalkoodana ilaahay uu kala soo sheegay meeshaan wuxuu ka caddaynaa abaalmarin إلهي سبحانه وتعالى أنه أبال شيغنايو إن علينا أن نقد الشيء وحا أحاضي للهدى عدين إنان عادتك أن تحسنوا حقا أما إنه وعدينه حق جد كيسون كل عدينه إلهي أو معناه واجب وأسأل إستسارة واي واجب وأنا أقول لنا هي ماها أسا إلهي سبحانه وتعالى نقول عدينا مركا جدكي إن علينا دشينا وحا هذي تفضل منا وإلهي سبحانه وتعالى ديرات وحقي زكاة وإلى الهدى عدينتا حقينا أنا دشي إذا يا هاتي الهدى ماشا وحلول الجيدة الدلالة على الحق حق ضدك لا توصيه معنى كليتنا وحا ايا لغو فسراه ان حق جدكيسي لعدايو كاس وحوي لا توصيه كان ان لعدايو ويا لبداس معنى بو لغو فسراه وان لنا انك وحا ايا نو سغناد الى وليهي للآخرة دارتي دنبيس انك اسكاله والأولى دارتي أو هوريسي أو أدونا آخرة وحويا أو دنبيسي وآخره والأولى تن هوريسي وحويا ومد أدوكا أدوني آخر أنا أسكال إله اللي ننقفك إلى هذا وضعي كرو أدون أنا أسكال أما آخر أسكال إلى هذا ولا لا يهي إلهي أسكال أسكاله إلهي مركا waxa oo asaga isku waajib yeelay inuu kala cadeeyo xaqi iyo baadilka waxa kamid ah fa anzartukum waxa idinka digay fa anzartu waan digay kum idinka dadow naar ya idinka digay naartaasoo tilmaanteed ay tahay talada oo hurayso marka naarta waa la hurnayaa marka sida culimada ay leeyihiin 1000 sano ayaa magaciisay لهورناي هذا كل بعض يا لهوري إلى إك جودتي كل سنة كلا يا لهوري 6 سنة هذا نوع عداتي مركز إلهي سبحانه وتعالى يا الدعوة يوجسد إله قار كيجا قار كلمات ويسعون جو وجور من درب قعدت كي نار تاسية إلى أسنو ودقا إله نجبت باديو فأنذرتكم وحايدين كقدقي نار تاسو تلظى هريسو تتلحب وتتوقد لا نار تمرك يا قلا لا يصلاها قلي مايو إلا الأشقى متك النصيب درض أو بدن مويه أما متك أيان كدرن كاسا قلا لا يصلاها لا يدخلها أما كولال كذا كم دبتوضو إلهي سبحانه وتعالى
wuxuu leeyahay annaga dusheenay ahaatay inaan waxaan kala caddeeno xaqa iyo baatilka tafadulan minha wax waajib ilaahay ku dheh ma jiro adduun iyo aakharana anaga iskale ilaahay caddeyntiisa waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala naar noogu digaayo fa andartukum waa idinkaga digay naaran naar naartaasoo taladaa oo hurayso naarta marka yaa galaa waa dadka tilmaamtan iska leh laa yaslaahaa geli maayo haa naarti ila al ashqaa kii oo nasiib darada ahay mooye ama kii ayaan darada oo ahaa kaas oo ayaan darada ah oo naarta geli doono ilaahay subxaanahu watacaala ayaa tilmaamaa wuxuu leeyahay alladii kii weeyaan kii ayaan darada ay ku dhacday kadaba beeniyey xaqii beeniyey iyo qiyaamadii beeniyey nebi maxamed beeniyey ilaahay beeniyey watawallaa ka jeesaday xaqiina ka jeesaday ee ka cararay kaas ayaa geli doonaa naartaas hurayso ama waxaa ku dhibtoo doonaa laa yaslaahaa kuleelkeeda kuma dhibtoonaayo ila al ashqaa alladii kadaba watawallaa wasayujannabuhaa waxaa laga fogeyn doonaa naartaasey al adqaa kii oo ilaahay cabsiga nima badnaay ayaa laga fogi doonaa ilaahay subxaanahu watacaala waa tilmaamaa midka alla ka cabsiga badan waxaa weeyaan alladii kii weeyaan ama alladii kii waaye yu'tii dhiibaayo maalahu maalkiisa bixinaayo oo dadka masaakiinta siinaayo agoonta siinaayo dadka baahan siinaayo mujtamaca iyo bulshada wax u qabanayo yatasakaa xaal oo isku dahiranayo ilan maalka haddii la bixiyo dahaarad weeyaan adigana dahaaras kuu yahay maalkana dahaaras u yahay yatasakaa isku dahirinayo kaas weeyaan yatataharu bihi waa isku dahirinaa waxay isku dahirinaa markaa in ilaahay dunuubtiisa ugu dhaafo xumaatooyinkiisa ugu dhaafo kaas weeya kan laga fogeyn doono naarta marka waxaasuu bixinaayane abaal dad inuu iyo waxtar inay u yeeshaan darteedan uma bixinaayo wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin qofkaas maalkiisa bixinaayo cindahu agtiisa min nicmatin abaal iyo waxtar oo tujzaa waxtarkaasoo tujzaa lagu abaal gudaayo macnaha qofkaanay tolka waxaa kuu taraan ama qof oo macnaha qaraabadiisa ama tolkiisa ama eheladiisa ama ninkaasay dan oo ka leeyahay ma jirto ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigiisa wejigiisa raadintiisa mooye rabbigii alcalaa ee sarreeyey wax kaleete oos u bixinaya ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa oo sarreeyey inuu raadiyo kalimahne laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariira maalin oo wejiyaalka la tubi doono oo aadna loo ciriiri doono oo wejiga loo tubi doono maalintaas keliyaan ka cabsaynina ilaahay subxaanahu watacaala ayaas u bixinaa marka ninkaas abaalkiisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay wala sawfa dib dambe waxa oo la sii doono
yaa yardaa oo raali ku noqdoona. marka ilaahay subxaanahu watacaala oo dhahay maxaad moodeysaa waxay la siini doona raali isku noqonaa. marka wax oo macnaa oo raali isku noqdo ayaa la sii doonaa. wala soofa dib dambe ayaa yardaa raali oo noqon doonaa qofkaasi. aayadda guud ahaan waxa weeye qofkii wax bixiyo ayay ka hadlaysaa. mufasiriinta qaarkoodna waxay ku ridayaan sidna abubakar ayay ku soo degtay leeyahay radiallahu canhu. waxa uu bixi dirin sidna abubakar inuu macnaa abaal dadka ooyo waxtar inay u taraan oo loo abaal guda tarteeda uma bixinayo. marka aayadda sidna abubakar iyo mufasiriinta qaarkoodii ay leeyihiin ay ku soo degtay. qaarna waxay leeyihiin caam weeyaan, in caam laga dhigana ayaa wanaagsan oo la yiraahdo wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujzaa, oo sidna abubakar ay ku soo degtayna way dhahaan. laakiin in caam laga dhigo qofka wax bixinaa ilaahay dartiisa inuu bixiyo ayaa laga rabaa. dan wax aad abaal u gashay oo abaalkaas aad u gudaysid ama ninkaasi abaalka oo isku soo gudaaya darteeda inaad u bixisid maaha. ilaahayna qofkaasi abaalkiisa wuxuu ka dhigi doonaa in oo wax raali oo ku noqdo in la sii doono. marka wala sawfa dib dambe ayaa yardaa oo raali noqon doonaa qofkaasi. ama sidna abubakar ku rid ama aayadda ama keyrkiisa ku rid in caam laga dhiga ayaa fiican. aayaddana waxay tilmaamaysaa in oo ilaahay dartiisa wax loo bixiyo oo aanan dad in galad aada u gashay darteedii oo galadkaas oo ku gudaaya darteeda inaad u sameynin. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.